18 Juulaay 1991 dowladdii Saddam Hussein ayaa bilowday in ay gumeystaha Israa'iil ku qaraacaan gantaalo waxayna ku rideen 39 gantaal dhanka Israa'iil gaar ahaan caasimadda Israa'iil ee Tel Aviv. Saddam ayaa dowladaha kale Carabta ka codsaday amaba ku xujeystay inay dhammaystiraan midka afartanaad, balse dowladaha Carabta ayaa ka cabsanayay Israa'iil mid isku daydayna ma jirin. xukuumaddii Saddam Hussein ayaa ku soo aaday wax yar kadib markii Iiraan ay la wareegeen koox Shiico ah oo isku magacaawday Kacaanka Islaamiga ee Iiraan, waxayna saameyn dhanka amniga ah ku yeesheen Ciraaq. bartamihii 1980 waxaa xoogaystay khilaafkii Iiraan iyo Ciraaq u dhaxeeyay oo markaa madaxweyne ka ahaa Saddam Hussein. ciidanka Ciraaq ee cirka ayaa duqeeyay magaalada Tehraan ee caasimadda Iiraan, waxayna beegsadeen garoonada diyaaradaha iyagoo gudaha u galay Iiraan. ciidanka Ciraaq ayaa aad uga awood badnaa kuwa Iiraan, waxayna si fudud cagta ku mariyeen difaacii Iiraan. Saddam wuxuu taageero ka helayay wadamada reer galbeedka, Mareykanka iyo wadamada Carabta oo ka soo horjeeday xukunka Shiicada. dagaalka ayaana socday 22 Sebtembar 1980 ilaa 20 Agoosto 1988, waana muddo 8 sano ah, wuxuuna joogsaday 1988 kadib xabad joogtiin ay kala dhaxdhigeen qaramada midoobe. dagaalka ayaa sababay in uu burburo dhaqaalaha labada dal. xiriirkii ka dhaxeeyay Ciraaq iyo Mareykanka ayaa xumaaday kadib markii uu Saddam Hussein uu hanjabaad tawada u mariyay gumeystaha Israa'iil ee qaxootiga ku ah wadanka Falastiin, isagoona ugu hanjabay in uu hubka kiimikada ku qaraaci doono Israa'iil haddii aysan joojin burburinta deegaanada Falastiin. Mareykanka iyo wadamada reer galbeedka ayaa cadaadis saaray xukuumaddii Saddam Hussein, taasoo Ciraaq ku qasabtay inay xiriir la yeelato Midowgii Sofiyeed. Saddam dowladdiisa ayaa kaalmo dhaqaale weydiisatay dowladda Kuwait, balse Kuwait ayaa iska diiday codsigaasi Ciraaq. Saddam ayaa codsi kale u diray wadamada shidaalka soo saara ee ku midaysan OPEC si ay kor ugu qaadaan qiimaha shidaalka si ay Ciraaq ugu soo kabsato dhaqaale xumada haysatay. wadamada Carabta oo ay Kuwait ku jirtay ayaa codsigaasi diiday. arrintaasi ayaana carab ku abuurtay dowladdii Saddam Hussein, wuxuuna abaabulay dagaal uu ku qabsanayay ceelal shidaal oo ku yaalay xuduudda Ciraaq iyo Kuwait si uu u go'doomiyo dhaqaalaha dalka Kuwait. 2 Agoosto 1990 ayuu si buuxda ula wareegay Kuwait, maadaama Kuwait aysan haysan ciidan awood leh oo iska difaaci karay ciidankii Ciraaq. Saddam ayaana ku dhawaaqay in ay Kuwait tahay qayb ka mid ah Ciraaq. Kuwait ayaa qaylidaan u dirsatay Mareykanka iyo qaramada midoobe. ugu dambeyn 1991 xulafo uu hogaamiyo Mareykanka ayaa Kuwait weerar ku soo qaaday, waxayna beegsadeen goobihii ciidamadii Saddam Hussein ay ku sugnaayeen iyo goobo ka mid ah dalka Ciraaq, taasoo horseeday in ciidanka Ciraaq laga saaro dalka Kuwait. 1991 cunaqabateyn dhaqaale ayaa lagu soo rogay dalka Ciraaq, waxaana Saddam lagu eedeeyay inuu haysto hubka kiimikada ee sida baan waxa u gumaada. 18 Juulaay 1991 dowladdii Saddam Hussein ayaa bilowday in ay gumeystaha Israa'iil ku qaraacaan gantaalo, waxayna ku rideen 39 gantaal dhanka Israa'iil gaar ahaan caasimadda Israa'iil ee Tel Aviv. Saddam ayaa dowladaha kale Carabta ka codsaday amaba ku xujeystay inay dhammaystiraan midka afartanaad, balse dowladaha Carabta ayaa ka cabsanayay Israa'iil mid isku daydayna ma jirin. Sebtembar 11 2001 markii Mareykanka lagu fuliyay weeraradii lagu burburiyay daarihii dhaqaalaha adduunka iyo xaruntii gaashaandhigga Mareykanka, madaxweynihii Mareykanka Bush ayaa wadamo ay ka mid yihiin Ciraaq iyo Afghanistan ku eedeeyay inay ka dambeeyeen weerarka lagu soo qaaday Mareykanka. 29 Maars 2003 Mareykanka iyo ururka NATO ayaa si rasmi ah weerar ugu qaaday dowladdii Saddam Hussein si xukunka looga tuuro Saddam Hussein. kadib weerar jihooyin kala duwan ah, ciidamadii Saddam ayaa isaga baxay Baghdad, caasimadda dalka Ciraaq, waxayna u bedeleen weerarkoodii qaab jabhadeen ah. 1 Maarch 2003 markii xukunka laga tuuray Saddam Hussein ayaa Mareykanka Ciraaq u sameeyay dowlad isaga maamulo oo ku meel gaar ah. dalka Ciraaq wuxuu galay burbur iyo amni xumo baahsan oo ilaa iyo maanta Ciraaq haysata. Saddam Hussein oo markaa baxsad ka ah
gaaladay ku soo duushay waddankiisa ayaa ku dhuumaalaysanayay gobolka Tikrit, balse markii dambe waxaa jaajoosay nin wax ka ogaa halka uu joogo kadib markii Mareykanka lacag duldhigay madaxa Saddam Hussein 13 September 2003 ay Mareykanku gacanta ku dhigeen Saddam Hussein isagoo ku dhuumaalaysanayay god ku yaalay Awdar oo u dhow Tikrit. bishii Juun 2004 ayuu Mareykanka gacanta u geliyay Saddam iyo 14 sarkaal oo ka tirsanaa xukuumaddii Saddam maxkamad ay maamulaan dowladdii Shiicada ahayd ee uu Mareykanka dhistay, waxa ayna ku xukumeen daldalaad, waxaana lagu fuliyay xukunkii daldalaad ahaa 30 September 2006. dalkiisa ayaa lagu soo beegay maalin Ciidul Adxa ahayd oo dadka muslimiinta dhan ciidayeen. Allaha u naxariistay Saddam Hussein wuxuu ahaa geesi carbeed oo ka hor yimid gumaystaha Mareykanka iyo Israa'iil